السلام عليكم maalin dhowd waxaan soo geliyay video yar oo 1 daqiiqo ah oo aan kaga hadlayay wiilasha dhalinyarada aan lahaa war gabar saxa doorta si aad qoys xasiloon u heshaan haddaba gabdhiin waxay yiraahdeen nafsooy anagana mana hilmaantay maxaa kugu dhacay maxaa video anagana noogu soo gelin weysay horta waxaan ka afeefanayaa inaan ahayn qof expert ah oo waxaan aqoon u leh soo bartay markaa ma aragtay ay shaqadiisa tahay laakiin waxaan ahay qof haysta khibrad ku filan hadday tahay mid personal experience ah iyo hadday tahay mid ma aragtay aan dadkan la soo shaqaynayay adduunyadaas aan ma aragtay qurbo iyo dalba aan aragnay aan ka dhaxalnay waa intaas inta aan idinla sheer garaynayaa waana midda biyo kama dhibcaanka ah sababtoo ah qofka markuu buug iyo qalin waxa u qaato iyo markuu si life experience uu arko isku mid maahan marka waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideysan doontaan horta qodobka koobaad sida nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegay ninka diintiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa lagu dooranayaa oo qofku waa inuu yahay qof diin leh markaana diinta ma aha inuu afka sheeganaye dhaqankeedu ay ka muuqdo masaajidka safkiisa hore ku tukanaya diinta quraanka gacantiisa midigta ku haysto diintiisa maaragtay ilaahayga isaga abuuray yaqaana nabigiisa yaqaana dee qof si fiican diinta ugu dhaqmaya inuu yahay tan lagama maarmaanka ah oo qodobkaas la socotaa waxay tahay inuu yahay qof aad u dabeecad leh hadduusan qofku dabeecad lahayn waxa weeyaan kuma anfici doono nin dabeecad xun sheekh kastuu yahay diin kastuu leeyahay dankuguma jirtee walaashay ka carar waa xaqiiqada waxaan kaala hadlayaa sababtoo ah gabadha hadday dabeecad xun tahay ama ay xoogaa maarta xanaaq badan tahay waa la wadi karaa laakiin nin dabeecad xun ma la wadi karo cid walbana waan ogaan doonaa waad igu raaci doontaan commentigaad igu reebi doontaan in uusan wiilka aadka u dabeecadda xun in dulqaadka lahayn in aan la wadi karin sababtoo ah wiilka dabeecadda leh waxa weeyaan dulqaad badan u muujin karaa dhibaato maalintay dhacdo qoyska u sabri karaa wax badan uu isku xeerin karaa wax badan uu ka aamusi karaa indhaha ka qarsan karaa laakiin ninaan dabeecad lahayn markiiba wuu soo boodayaa wuu qaylinayaa kadibna qoyskii gabadhii ilaa ma aha mas-uul ilaahay isagoo qawaam ka dhigay oo uu qur-aankiisa noogu sheegay marka hadduunan wiilku dabeecad lahayn diin kastuu leeyahay sister run away okay qodobka aan ogahay in muran badanna ka dhalan doono waa qodobkan wiilka waa in uu yahay nin kugu dan ah oo kugu da-ah kugu dan oo kugu da-a maxaan ka wadaa qofku waa in uu yahay qof aad da ahaan ama isku dhowdihiin ama aad isku mid tihiin hadduu qofku yahay qof xoog kaaga weyn maxaa la yidhi nin go kaa weyn garaad kaa weyn qofka kaa weyn oo saa'idka kaaga weyn ma ka hadlaayo 2 sano 3 sano ilaa 5 sano ma ka hadlaayo laakiin waxaan sheegaa qofka gaabka idiin dhexeeya oo 10 sano iyo wixii ka badan uu yahay qofkaas waxa weeyaan maskaxdiisu way buuxda experience baa ka buuxa ama mid xun ha noqoto ama mid fiican ha noqoto waxa weeyaan waa qof maskaxiisa buuxdo marka qofku maskaxiisa buuxdo uu soo daalay waxa weeyaan adiga oo fresh ah oo curdan ah oo 20 jir 15 jir 18 jir 25 jir 30 gaar hadaa rabtid laakiin gabar aan hore u soo guursan hadaa tahay oo kale ama aad tahay gabar da yar oo noloshu ka soo wareertay qofka maskaxiisa soo daashay kuma anfacaayo sababtoo ah qofkan maskaxdiisa dhan waxaa ku furan tashuush waxaa ku furan buuq ama problem guri baa kasoo burburay ama ma aragtay hadeer buu qoys haystaa waxa weeyaan dhibaatadaasay toole kuma anficayso sababta haddaan kuu sii faahfaahiyo waxa weeyaan ninku markuu family yahay oo gabar qiimo badan ay guriga u joogto waxa weeyaan waa nin noloshiisii ilmihiisii xaaskiisii busy ku ah adiga waxa uu ku hayaa waqtigu yarya saa ogtahana gabadha dhalinyarada ah waxay u baahantaa waqti waxay u baahantaa nin holiday la aada nin waqti siiya nin maartay gacanta ka qabsato nin qeyrkeed ugu faanto weliba especially gabdho waxay jecel yihiin dhalinyarada ah in ay ma aragtay gacanta ninkeeda qabsato magaalada isla maraan casho aadaan gabdhaha khayrkeeda ay ma aragtay ugu faanto waxaasoo dhan ay u baahantaa marka nin isbuuxa oo maskaxiyan iyo gacmahana ka buuxa maskaxdana ka buuxa haddii aad la qaybsato nolol waxaad ku xisaabtantaa nolosha farxadda aad raadinaysay sister ma helaysid waqtigaas iska luminin marka hadeerba ka fakar qof maskaxdiisa siday adiga nadiif u tahay u ah degan xiskiisu degan yahay maskaxiisu degan yahay nadiif ah keligiis ah aad nolosha isla qadi kadhi isla quudan kartiin raadso okay qodobka kale
oo aan ogahay inuu asagana muhiim jiddan yahay, weligaa qof dan ha ku gelin, weligaa qof ha ku gelin, ku danayso, ku meel gaar. waan ku dhoofayaa wadan hebel markaan tagaan maaragtay bal arki doonaa. weligaa qof dantaada ha ku gelin, dantiisana ha ku gelin, taadana ha ku gelin. danta mustaqbalka adiga aad raadinaysid haddaadan ka helaynin waqtiyuusa kaa dhumin. qodobka ugu muhiimsanaa noo dibdhigay oo aan ogahay qof walbaahay qodobkan gabar kasta inuu lagama maarmaan u yahay ee la soco. marka iska ilaali danaysiga hadday xaggaaga ka imaanayso iyo hadduu qof adiga ugu danaysanaya yahayba, labadaba iska fiiri. halkaas hadday dani soo gasho, gurigaasi waa guri burburay oo baaba uu u dambeeyo. lagama yaabo in qoyskaasi waaro haddii mar dani soo gasho, waxay rabtaba ha noqote, dan dhaqaale ha noqoto, dan maxaa la yiraahdaa si kale ha noqoto. hadday mar interest waxa leeyahay soo galo, gurigaas waa kaaga dhammaata. marka haddaad gabaray nolol qabow oo degan aad rabto, iska ilaali nolol dani ku jirto oo ama adiga ha kugu jirto ama qofka kale ha ugu jirtay aad interest waxa leeyahay aad ka raadinayso, noloshaada ha gelin. maal waa la helaa laakiin maskax lama helo. maskaxdaada waa muhiim jiddan waxa ay ku tamaninayso in aad maaragtay waafaqdo. waxaa kale oo asagana lagama maarmaan ah qodobkan si xoog leh inaad iskaga fiirisid. qofka aad dooranaysaa, wiilka weliba aad dooranaysaa, waa inuu yahay qof hadaf leh, qof meel u socda, qof go-aan leh, qof maxaa leeyahay ay ka go-an tahay waxa uu adduun iyo aakhiraba raba inuu ajiif gareeyo intaan uu adduunka joogo. waa inuu yahay. hadduu yahay nin bilaa gool ah, bilaa hadaf ah, haddaad tiraahdid 10 sano oo haddii ilaahay subxaana watacaala adduunkan kuu sii daayo, maxaad adduunkaagii aakhiradaada kuu diyaarsan? hadday tahay qoys, hadday tahay aakhiradiisa, hadday tahay maaragta goolashiisa iyo hadafyada uu rabo inuu adduunkan ka gaaro, hadday tahay shaqadiisa, hadday tahay dhaqaalihiisa, dhinac walba. waxaa jira buug la yiraahdo oon gabar walbana ku rekomenda garaynaa inay akhriso oo la yiraahdo waxaa leeyahay act like a lady, think like a man. sidii dumarkii u soco ama u dhaqan, laakiin sida ragga u fakar. buuggaasi wuxuu ku siinayaa 14 su'aalood oo waxaa ku jiro ay tahay gabadha first date ama second date kaba inay iska weydiisan ninka si ay u noqoto gabar dantii ay lahayd ama mustaqbalka ay raadinaysa inay ka dhex aragtay in kale. inkastoo uu ku beysgaraysan yahay buuggaasi uunan maaragtay nin islaam uusan qorin, haddana waxaa qoray nin aad u khibrad u leh, 3 jeer guri kasoo baaba'ay, homeless gaari dhex seexan jiray 3 sano oo la yiraahdo Steve Harvey ayaa qoray buuggaas. biliis raadso haddii aad luqadda ingiriis ku fiican tahay. ma arag wax Soomaali ku turjumay. waxaa la yiraahdaa act like a lady, think like a man. buuggaas raadso insha allahu tacaala, khibrad badan baa ka helaysaa. marka qodobkaas ha iska dayicin. ninku hadduu yahay nin aan gool lahayn, oon hadaf lahayn, oo maxaa 10 sano soo socota kuu balaansan haddaad tiraahdo inuusan adduunkiisa iyo aakhiradiisa iyo qoyskiisa iyo danta uu adduunkan iyo aakhiradanba ka leeyahay aan kuu bayaanin karin, waqtigaaga ha iskaga luminin. especially waa inuu og yahay guurkuu guursanayo, danta uu ka leeyahay, ubadka uu doonayo inuu dhalo, lambarka uu rabo inuu dhalo haddii ilaahay siiyo, inuu maxaa la yiraahdaa financial ahaan xagee buu doonayaa inuu 10 sano soo socota gaaro, muxuu hadda haystaa, maxaa u soo socda, muxuu ajiif garaynayaa, muxuu bartaa, xagee u socdaa, waqtigiisa. weliba su'aalaha muhiimka waxa weeyaan qofku markuu off yahay xagee buu ku bixiyaa waqtiga. waxaad ka ogaan kartaa qofkaas qofka uu yahay xilliyada uu fasaxa yahay, meesha uu ku bixiyo. qodobka haddaba ugu dambeeya oon rabo inaan kusoo gabagabeeya wuxuu yahay waxa la yiraahdaa women intuition. gabadha waxbaa jira dareen qofkan inuu daacad kuu yahay iyo in kale kuu sheegaya. weligaa intuitionkaas ama waxa yaroo maaragtay gudahaaga ka hadlaya, weligaa ha ignoorad garaynin. waa biyo kama dhibcaan, sababtoo ah waa adiga keliya waxa ogaan karaa waxa kuu danta ah. markaad qofka eegto ood qaladaad iyo dhacdhac iyo waxaad ka aragto, isla markaasba qalbigaaga dhagayso. qalbigaaga hadduu ku leeyahay wallahi ninkan wuu ku qiyaamayaa, it's not maaragta si uu agti garaynaya ma aha sidii aad doonaysay, waa runta. sababta ah women intuition never lie baa la yiraahdaa. qalbigaaga waxaan yaree ka hadlaya weligood been ma sheegaan. waxaan rajaynayaa in intaas iska fiirisid, horna aa u socotid. guuliyo gobonimo idin rajaynaya. بليز بيج كيga subscribe garee, isoo follow garee for more. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.